howlgalku dhanka kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo si wadajir ah u fuliyaan ciidamada qalabkooda oo isgarabsado booliiska xoogga dalka, nabad sugid iyo daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo geedka lagu fuliyay jidka iska hareeriyo deegaanka Daynuuna iyo magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo dhowr ah. Howlgalka oo 4 jih la qaaday ujeed yahay bacsadowka nabadiidka Al-Shabaab oo xogtay iyo xiran ciidamada qalabkooda inay ka dhuumaaleystaan tuulooyinka hooskood deegaanka Daynuuna ee gobolka Baaya. Taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow yaa horkacay howlgalka wayna qayb ku ah saraakiil ciidamada booliiska, nabad sugidda, daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ujeedka howlgalka uu yahay xoojinta ammaanka jidka iska hareeriyo Daynuuna iyo Baydhabo oo kooxda nabadiidka Al-Shabaab si dhuumaaleysi ka kooyaan kurana dhibaatooyin kala kulmaan bulshada isticmaala jidkaasi. Taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow yaa sheegay intii sii wada doonaan howlgallada la kabacsado kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo had iyo jeer beegsadaan shacabka masaakiinta walan galabsana way banuusay ciidamada kala dardaarmay intii si lama jibaran sugowka ammaanka deegaanada ka sugan u socona bulshadan ka baaqay intii la shaqeyn ciidamada hamin imaalan ansurun sugowka ammaanka iyo la dagaalanka kooxda waqtisho dhamaaday nabadiidka Al-Shabaab. Faysal Hussein, warbaahinta Koonfur Galbeed, Baydhabo.